بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkay meel walbo joogtiin caafimaad waara aan rajeynaya waxaa jiray 10 cusub bilownay oo ku saabsan psychology maadaama chapterkeeni hore ama qaybteen hore aan ka soo hadlay psychology-gu wuxuu yahay iyo inta meel oo quseeyo maanta waxaa rabaa inaan gudaha u galo meel taabanaysay in isku xiran yihiin caafimaad qabka psychology-ga ama psychology oo inta badan ka hadlayo qofka nolol maalmeedka uu ku nool yahay dhanka shaqada iyo saameynta ay ku leedahay iyo environment-ga saameynta ku leeyahay waliba waxaa rabaa inaan sii hoos galo dhanka ka walwal qabka waqtiga iyo mar walba qofka inuu obsessed ku yahay ama uu aad uga fikirayo oo xooga saarayo in career-kiisa ama shaqadiisa oo ku dhex jiro inuu sii adkeeyo ama uu sii weynayo horta caalamka xaaliyan problemkan time and anxiety-ga iyo ka walwal qabka qofka inuu mar walba kor u sii qaado darajadiisa oo waxbarasho ama aqooneed waxaa problem badan oo ka jiro oo kor u sii kacayo sanad ka dambeeyo marka waxaa jiro hadda waxaa ka hadlaynaa ama araba xoogaa inaa jajabiyo maxaa waay caqabadaha ka imaan karo bini aadan markaan nahay waxaa laga yaabaa inaan nolosha caadiga iskaga dhex jirno nolol maalmeedkeena oo noo socdo wax dhibaato ah een haysanin aan u malaynayno inaan fiican nahay mental health-ga oo caafimaadkeena nafsiga oo noo fiican yahay haddiina la dhaho xataa waxaa qaldan aqbalaynin laakiin future-ka dambe ama waqtiga dambe ee dhacaysa qofka inuu gadaal uga soo baxo marka si aan uga hortagno maxay keeni kartaa horta time and anxiety ama maxaa waaye xiriirka ka dhaxeeyo ka walwal qabka waqtiga iyo xoojinta ama sare u qaadka qofka uu sare u qaadayo career-kiisa ama shaqadiisa inta badan ka walwal qabka waqtiga waxaa shidaal siiyo shidaal ka qaadataa qofka rabitaanka oo rabo inuu career-kiisa kor u qaado ama shaqsiyan waxbarashadiisa courses cusub xirfado cusub shaqadiisa kasii fiican waxyaabahaas marka labadooda xiriir ka dhexeeya maxaa waaye qofka damoor oo ku mashquulsan yahay inuu career-kiisa kor u qaado ama positionka uu caalamka ku leeyahay ama doorka uu ku leeyahay nolosha markaas uu kor u qaado waxaa kusii kordhayso time and anxiety inuu waqtigii ku yar yahay oo dareemaya waxaa laga yaabaa inaa maanta dhan dareemaysid waqtiga inuu kugu yar yahay out of time inaad tahay in waqti aadan baxaynin sidaadaba in waqtiga oo aad kugu yar yahay oo aadan waqti haynin inay maskaxdaada aaminto ama caqliyadaada ay aaminto waqtigaas kugu yarne wuxuu mar walba kaa xirayaa waxay kula tahay in waqtiga uu kugu yar yahay oo uusan ku gaarsiinaynin guulaha aad rabtid oo ku gaarsiinaynin inaad ka hortagtid oo caqabadaha ka hor imaanayo iyo nolol maalmeedkaaga oo saameyn oo ku leeyahay mar walba waxaa ka walwal qabee ma aadan gaarin sidaas daraaddeed waqtiga waa inaa baqishaa waqtiga waa inaa baqishaa waqtiga waa inaa baqishaa no matter what achieve aad gaartid si kastoo heer u gaartid ama heer kastoo gaartid mar walba maskaxdaada waxay ku sabgareysmaysaa ama subconsciously ay noqonaysaa in waqtiga uu kugu yar yahay oo heerka aad hadda gaartay heerka si fiican ay qasab tahay inaad gaartid waxaa kaloo ku jirto goolkan markaa gaartid another goal aad chase gareynaya kana gaartay isla markii haddana kan kale kasii gaaray kan kale sii gaaray soo marka waxaa gelaysaa circle in 24 hours-kaas uu kugu yar yahay sidaas daraaddeed waxaa ku qasbanaanaya waxyaabo badan oo qofka bini aadanka normally ama ilaahay ugu talagalay inuu sameeyo ama ka qayb qaadan lahaa caafimaadkiisa oo nafsiyan ama caqliyan in aad meesha ka saartid oo aad buuxisid marka anigu kala qaadayno qofka markuu time and anxiety qabo horta problemada uu imaanayo maxaa waaye midda koowaad marka walwal waqtiyeed qabtid saadaa hore uu soo sheegay waxaa kugu dhacaysa mar walba inuu waqtiga kugu yaryahay waqtiga kugu dhamaano waxaa kaloo dhacayso pressure badan inaa u qaadid in presentiga aad taagan tahay ama waqtigan hadda inaadan ku raaxaysanin ama guulaha aad gaartay aadan u arkin inay micno leeyihiin that's why inaa sii oradid mar walba waxaa kugu jirto waqtiga inuu kugu yaryahay adigoo fiirinaysid haddana long term rajooyinkaaga dambe ee mustaqbalka waxaa kaloo jirayso time and anxiety inay qabto waxaa aaminsantahay inuu waqti kaa dhumo maanta dhan wax yar ama jaam hadaa soo gashid ama qof saaxiib oo ku salaamo ama out of
topic haddaa ka hadashid waxyaabaha adiga yani qofka wuxuu samaysanayaa jadwal ama timetable-kaas wax yar ka mid ah 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ka mid ah haddii uu kaa qasmo isla markii waxaa kugu dhalanayo walwal ah in adiga iska xanibtay long term goolashaadii ahaay oo markaas uu kugu dhalanayo maxaa waqtigaas iskaga dhuunsay maanta maxaasaan usoo yeeshay waxaan maxaa usoo samaysay dhinaca kale qofka markuu obsessed ku yahay ama uu aad u jecel yahay uu ka fikirayo wax uu hadda joogo hogaanka uu hadda hayo ama doorka uu hadda ka hayo nolosha in mar walbo sii socod kor u sii kacdo maxay keenaysaa waxyaabaha ugu horeeya oo ka imaanaya waxay tahay in adiga shakhsiyadaada ama self worthigaaga ama qiimaha nafsadaada ay leedahay mar walba ku xiran tahay careerkaaga yani waxaa jiro self esteem dhowr mar ka soo hadlay yani in adiga proud isku noqotid shaqada haysid aad ku filan tahay waxyaabaha soo jeedinaysid ay filan yihiin door fiican aa mujtamaca ka leedahay waxaas dhan ma arkaysid yani mar walba waxaad ku arkaysaa qof level hoose joogo mar walba waxaa raadinaysaa level ka sareeyo levelka aad hadda taagan tahay marka in adiga aa qiimo yeelatid waxay ku xirnaan doontaa mar walbo heerka aad shaqada ka taagan tahay marka haddii ay dhacdo inaad mid ku daahdid waxaa imaanayso self worthgaaga ama self esteemkaaga ama kalsoonida aad isku qabtay ama yani baroodka aad isku ahayd saas yani inaad noqon lahayd qof isku faano way kaasii dhacaysaa sababtoo waxaa cabaar ku daashay ama cabaar aad ku jirtay shaqo ama kariirkii aad hor kugu sii mari waayo dhibaatada kale ay ku keenaysa waxay tahay oo ugu badan in qofka uu ignore gareeyo relationships يعني waxyaabo xiriir ah inuusan sameynin ama haasaabo uusan sameynin ama asxaab oo aad isku fiican yihiin inuusan abuuranin asagoo markaas ka hortagaayo oo dhahayo waqtigaas aad ku dhiminaysid careerkaaga kor ugu sii qaadi kartaa xataa haddii oo imaado family pressure oo guursado waxay sii noqonaysaa mar walbaba in oo ignore gareeyo ama uusan xooga saarin waxyaabo yani familkii uu sameeyey ومر walba uu ku mashquulsan yahay ama obsess uu ku yahay hadaa familka waqti la qaadatid waqtiga ka dhamaanayo guulahaagi ma gaaraysid waa laga hormarayaa yani maskaxdii wixii subconsciously markii la dhahayo waxay tahay wixii subconsciously ula qabsanayo markii lagu dhahayo maskaxdii waxay tahay yani wixii waa ku dhex nooshahay so ma ogid wixii inay qaldan yihiin ma ogid waxa ku dhibayo inay yihiin routiinkaas aad ku jirtid yani subconscious waxyaabaha qofka caadiyan oo u sameynayo asagoo ka warqabin sida ama mushkilatiga camal markaa wadaysid ama gurigaaga markaa aadaysid focus ma u baahno waxaa laga yaabaa adigoo telefoonka hadlaysid inaad gurigaaga iska aadid yani waxyaabo badan shaqooyin badan maskaxda qaban kartaa jirto iyada oo aanan consciouskaaga ama waacigaaga uusan joogin marka waxaan dhan qofku waxay ka noqonaya automatically wax asaga ka daacad ah oo hadhowti xataa ay adkaanayso in uu aamino waxaan qalad waaye ama noloshaadii caqabad ku tahay haddii la dhaho inuu aamini waayo marka qofka markuu career obsession qabo ama mar walba rabo shaqadiisa inuu hogaamiyo xataa haddii uu family yeesho way adag tahay familkiisa inuu la qaato waqti waxyaabaha ugu horey oo sameynayaan waxay tahay in ilmihii uu ka dhaadhiciyo waqtiga inuu yahay yani wax walba waqtiga qiimo uu leeyahay waa loo baahan yahay laakiin in time and anxiety aysan imaanin ma ka celinayo yani cunugii kale cunug ilmihiisa wuxuu ku abuurayaa in time and anxiety ay jirto oo waqtiga si kasta u baahan yahay in laga faa'iideysto waxa mid ugu dambeyso ugu xoog badan waxa waaye in uu mar walba dareemayo achievement inuu gaarin wareeb oo sameeyo achievement inay gaartay maka dhaadhicayso maskaxdiisa haddeertaan waxaa galeynaa psychologically qofka maxaa waaye marka dhibka uu keenayo in waxaa laga yaabaa in hadda isdhahdeen haddii qofka oo intaas ku mashquulsan yahay maxaa ka micno ah hadduu waqtigiisa ilaalinayo maxaa ka micno ah laakiin casharkan bilowgiisa waxaa idin soo sheegay yani waxyaabaha qaar waxay naga haleynayaan caafimaad qabka caqliyadeena iyo caafimaad qabka nafsadeena sidaas daraaddeed ma ogin xilli aan gaarnay in psychological problem oo nagu dhaco ama nafsi ahaan aan u xanuunsano anagoo mar walba focus ka saarayna midaas waxaa laga yaabaa xataa haddii jismiyan aa u jiratid inaad isbitaalka aadid inay kaaga baahan tahay inaad timetable u samaysid yani maanta inaad isbitaalka aadid haddii aysan qorshaha kugu jirin oo aadid xataa hadhowt inaad walwal cusub ka samaysid marka haddeertan iyo gudaha hadaa u galno psychological maxay noqonaya qofka inuu ku dhaco chronic stress and burn out chronic mar walba waxaa lahaa xanuunada
aadka u daran in lala tacaala maahe aanan daawada lahayn soo marka stresskiisa wuxuu gaarayaa level oo markaan caawinaadiisa si lagu caawiyo ee adag tahay waxaa kaloo dhacaysa burn out wax la dhahaayo oo iidan hadda ka hor aa kasoo hadlay in qofkii shaqadii asoo dhex qabanayo oo yani isku sii eedo professionka hoose usii dhacaysa qaylo badan inuu keeno buuqa inuu dhibaayo dadkii oo markaas la shaqeynaya inay dhibayso computerka inuu dhibaayo yani waxa imaanayso burn out markii la dhaho shaqadii wixii related oo wali leeyahay qofkii wuu ku dhex jiraa laakiin culays badan waxay ku haysaa psychologically yani wixii maskaxdii la qabsatay wuu isku sii qasbaa laakiin waxaa mar walbo hoos u dhacaya rabitaankii normalka ahaa taasoo iidan ay la socoto vitamins badan in hoos u dhaco in ay la socoto dopaminadii iyo serotoninkii iyo qofka farxadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ka qayb qaadan lahaa activitygiisa oo mental healthga inay iidan hoos u dhacaan waxaa kaloo keenayso in relaxing oo qofka noqonin yani qof degan qof markaas waxa ku dhex jiro ku dhex degan ama nafis ku haysto ama ku faraxsan inoosan noqonin waxay kale noqonaysaa inspired waxa ka noqonaya ama yani waxaan la hubin waxa ka noqonaya go'aamada uu gaarayo yani go'aan walba wuxuu ka fikirayaa waxaas ma sameysaa ma iska dhaaftaa yani haddii la dhaho waxaan caafimaadka u fiican yihiin samee iyada naftirkeed inuu hore go'aan ka qaato way ku adag tahay because wixii maskaxdii la qabsatay marka waxa ku adag inuu go'aan sameeyo waxaana mar walba kaas wali ka sii yani go'aanka oo sameynayo inuu meel u fadhiisto oo wixii aqbalo waxa ka celinayo asagoo ka cabsanayo wasting time inuu sameynayo yani inuu waqti iska dhuminayo marka psychologically qofkii way ku adkaanaysaa inuu go'aan qaato go'aan qaadashada iyo problem solving dhibaatooyinka in la xaliyana doorarka qofka mentalitygiisa ugu weyn waayo ama aqliyan qofka doorarka ugu weyn oo ku nool yahay ama farxadda siin kara waayo in mar walbo ay ku sii korodho frustrationka qof markii dambayso xanaaqiisa iyo waxyaabaha yararka oo micnaha leh ku xanaaqayo inuu noqdo labada pointi oo ugu dambaysa waxay tahay oo psychological problem soo gaarayo hadduu qofka yahay qof aad uga walwal qabo waqtiga iyo careerkiisa anxiety iyo depression inuu ku dhaco yani depression mar walba waxaa keenayo haddii oo wixii aad ku dhex jirtay aysan farxad lahayn aana ku daalaysid burn out hadduu imaadane waxaa imaanayso yani shaqadaada si awil high u ahayd haddii report lagaa rabayay haddii activity lagaa rabayay inaa wax walba ku fiicneed sameynaysay on time ahayd markay hoos usii dhacdo ama dadkii boos ku ahaa shaqada kaaga sareeyay amaba meel haddaa gooni u lahayd in wax soo saarkaaga oo hoos u dhaco qof kastoo bini aadanna marka wax soo saarkiisa hoos u dhacone waxaa ku imaanayso cabsiyo badan so mar walbane haddii wixii ay yihiin mental health caafimaad waxaa laga yaabaa ama waxyaaba runta ah inaan ciyow la fahmin sidaas daraaddeed waxay kuu hogaaminaysaa in qofka depression ku dhaco ama walwal marka automatically qofka wuu qabaa yani markasta wuxuu ka walwalayaa waxaas amay jirin waxaas amay dhacaan marka dambena waxa uu xigsanayo depression waxaan rajaynayaa inaan wax ka fahamteen aad u mahadsantihiin haddii ay jirto qof dhibaatadan isku arkay waxaan rajaynayaa inuu ila soo xiriiri karo oo imaan karo xarunteena dabaruux wax badanna lagala tacaali karo waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan wax uniga fahamteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu